waan salaamay saaxiibayaal barnaamijka caawa waxaan kusoo qaadan doonaa 10 magaalo ee Soomaalida ugu faraha badan ee degan tahay dalkan Canada. Waxa xusud mudan in aysan jirin dad exactly huba inta magaalo walba degan, laakiin qiyaasta ay dawladdu ay sheegayso magaalooyinka ugu badan ayaan fiirinaynaa. Magaalada koowaad waa magaalada Toronto ee magaalada ugu dadka badan dalka Canada ee gobolka Ontario. Magaalada labaad waa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee galbeedka dalka Canada. magaaladana Soomaali aan yareen ayaa degan, waa magaalada labaad ugu dadka badan ee dalka Canada ee xagga Soomaalida. magaalada saddexaad waa magaalada caasimadda ee Ottawa ee gobolka Ontario. Soomaali la xusi karo ayaa magaaladaasna degan, waa magaaladii caasimadii dalka ee dawladda dhexe ay deganeyd. Soomaalida dawladda ka shaqeysa ayaana magaaladaas u badan, waana ay ka muuqanayaan, waa la dareemayaa Soomaali inay degan tahay magaaladaas. waa magaalo qurux badan ay ku yaalaan aqalkii baarlamaanka iyo aqalkii ra'iisul wasaaraha. magaalada afraad waxay noqonaysaa magaalada Calgary ee gobolka Alberta ee ku taala galbeedka. magaaladan Soomaali ayaa degan, inkastoo aan cadadkeeda la hubin. magaalada shanaad waa magaalada Hamilton ee gobolka Ontario ee aan wax badan ka fogeyn magaalada Toronto ee ugu dadka badan. magaaladaas waa magaalo warshadeed, Soomaali ayaana degan oo muddo deganeyd. magaalada lixaad waa magaalada Kitchener ee gobolka Ontario, sidoo kale Soomaali ayaa degan oo la taaban karo oo la sheegi karo meeshaas, muddana deganeyd. waa magaalo yar oo qurux badan kana jaban qiimaha magaalada Toronto. number 7 waa magaalada Vancouver ee galbeedka dalka ee ku taala gobolka British Columbia. waa magaalada xeebta ku taala dekada ayay leedahay magaaladaas. waa magaalo aad u qurux badan, dadkeeduna ay aad u fara badan yihiin, Asiaankana ku badan. magaalada 8 magaalada Winnipeg la dhahayo waaye, oo ka tirsan gobolka Manitoba. waxay aad ugu dhowdahay ama ay marin u tahay dadka Soomaalida ee ka soo gala ama ajnabiga ka soo gala dalka Mareykanka. waa marinka ay sii maraan markay Canada geliyaan. magaalada 9aad waa magaalada Brooks. magaaladan Soomaali ayaa degan, la taaban karo. sidoo kale waxa ay caan ku tahay dhanka warshadaha hilibka oo dad fara badan ay ka xamaashaan. magaalada 10aad waa magaalada Windsor ee gobolka Ontario. waxay ku taalaa xuduudda Mareykanka iyo Canada, meel u dhow ayay ku taalaa oo aad ugu dhow dhanka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Detroit ay dhahayaan ayay ku degan tahay. waa in salaamay saaxiibayaal intaas.